كيدب مواعي سكيتما بقال كدما زدوا ولا دل قال ججما وقبدو jirkooda ku maadaalinayo rag lacagtu ay ka daadaadanayso kuwaasi oo iskugu jira xildhibaano da'yar iyo saraakiil ka mid ah Niza baby mama anima adiga kuil mama kalimo huwa kusina hal marmehe wala bena meshi hawa dagina waa runteed way siinaysaa hal mar iyo laba mar ka badanba sababtoo ah halkan ma ahan goob lagu cibaadeysto ee waa goob lagu tunto oo ku taala xeebta Lido hadegdegin haddii aad ila joogto 3 daqiiqo waxaad xog ogaal u noqon doontaa xogta shakhsiyaad adigu markaad aragtid ku wanaagsan laakiin loodinaya mustaqbalka kuweena waqtigan soo baxaya waxaan ugu talagalay niman dad waxa jira mas'uuliyiin ama maxal lahaa hormuud wax u shaqeeyo kale oo qof oo sawirka baqaayo kale inuu ku qaylo codkan aad maqlaysid waa shakhsigan ku muuqanaya waxa lagu magacaabaa Xasan Hayo waa muwaadin Soomaaliyeed oo dhalashada wadanka Sweden haysto markaana Sweden ugu tagay si Soomaaliya gooban noocan oo kala ugu furo waxaad isweydiinaysaa marka hore codkan waa maxay codkan sheekada barnaamijkeena oo dhan waa udub dhaxaadka halkan aan daawan doontid wuxuu ka sheekeyn doonaa wax walba iyo sir walba oo ka dambeeyo goobtiisa inay furnaato balse marka hore waxaan ku bari doonaa waa kuma Xasan Hayo Xasan waa muwaadin haysto dhalashada wadankan Sweden laakiin markan Soomaaliya u joogo inuu gooban noocan oo kala ah hal labo ilaa 3 goob oo lagu tunto ka furo mararka qaar waxaad isweydiinaysaa gabdho da'yar ah oo Facebook laga baadinaya Facebook laga baafinayo si lamid ah gabdho da'yar ah oo 20 ilaa 25 u dhaxeeyo nolol iyo geeri lagu waayay haddii aad aragtid gabar da'yar oo la waayay halkan ayaad ka heli doontaa qaarkood iyaga oo loo isticmaalay maandooriyo qaarkood iyaga oo loo isticmaalay in si toos ah loo baadiyo laakiin sheekadeena ayaan dib ugu laaban doonaa mararka qaar waxaad isweydiisaa waa maxay sababta Muqdisho ee ugu taalo goob noocan oo kala ah oo waliba gabdhaha jirkooda lagu iibiyo goobtan oo ku taala degmada Cabdicaziis waxaad isweydiinaysaa mar kale Muqdisho waxa ka dhisan ciidamo booliis ah kuwa kale oo anshax kuwa kale oo budget gooni ah ku qaato la dagaalanka maandooriyaha si lamida ciidamadii sirdoonka ayaa ku sugan Muqdisho waa maxay sababta goob noocan oo kala ah ee Muqdisho ugu furan tahay haddii aad isweydiin jirtay su'aashaas jawaabteeda ayaa si fudud ku tusi doonaa nin kasta oo saldhigan yimaadana meelahaas wuxuu ka qaataa qutul qulub mafaati Xasan isaga ayaa ka sheekeynaya markan sababta goobtiisa ay ugu furan tahay Muqdisho cid u fududeysay wuxuu leeyahay sargaal walba oo loo soo magacaabo degmada Cabdicaziis waxaan siiyaa lacag gunna ah taas oo ganacsigayga ii badbaadiso codkiisa ayaan ku maqashiin doonaa isaga oo ka sheekeynaya sirtiisa iyo mararka qaar xitaa wuxuu leeyahay saraakiisha qaar iyagoo lacag baad iga qaato ayaa mar kale iyaga ku dhooda liiso adeegsadaa markaas habeenada ay ugu shidan tahay oo jimcaha oo kale oo caawa kale way dhibaateeyaan liibaan waa yimiday nin kasta oo saldhigan yimaadana meelahaas wuxuu ka qaataa qutul qulub mafaati aniga inuu dadkan dhaafo maqaayado u xiraay cadeema haya inaa wax siiyaan wax kasta cadeena ka sameeyay haddana dhibaatada ugu weyn ninkuu ku sameeynayo meelaha furana aniga leeyahay xiray saabadana ma laga xirla ayadoo jimca ah oo habeenada kala deen aan ku jiro shaqaalihii iyo markaa iska dhiibo dukaanka hadda ku soo diri karaa dukaanka caawadan kula hadlaa 1200 lacag ku dhow ugu leeyahay habeenka jimcada ah marka xoogaa timaadaha xoogaa fiican la siiya marka wuxuu keenay habeenka jimcada aan wax helay ama meena ku jiro inuu iga xiro maqaayadii kale ee furnaada baadna laga qaato ninka ugu fiican oo saldhiga soo maro wuxuu ahaa macla aadan loo dhahay ninka ugu fiican oo saldhiga soo maro wuxuu ahaa macla aadan loo dhahay nin boqor oo soo maray waxa loo bedelay in darkeenley haddana waxa loo soo bedelay yakhshid macla aadan wiil yar oo jab yar oo aad u afgaaban waay hatta saldhiga aniga qaybta ugu badan aan ka bixiyay lacagta oo xafiiska iyo macal kuraasta iyo taalo saldhiga Cabdicaziis asaay dhaaniyo saraakiil badan ay imaanayso lacag ma haysti waxaan rabaa meel yar oo dad mas'uuliyiin ay u imaan karaan maxay uga caawin kartaa 200 la soo dhahay wallahi 500 aan ku soo deensanaa ku dhahay haddii aad si degan u daawatay codkiisa
wuxuu leeyahay sargaal walba oo halkan imaado waxaan siiyaa lacaga baada si ay ugu furnaato goobtan. mararka qaar wuxuu leeyahay xitaa anuu lacaga baada bixiyo ayaa haddana saraakiisha liya adeegsadaa. saraakiisha magacyadooda uu sheegay iyo saraakiisha kale ee soo martay degmadanba haddii aysan ninkan cadeynta uu haayo maxkamad aysan la tegin waxaa ku cadaanaya warkiisa inuu sax yahay. booliis walba oo la geeyay degmada Cabdicasiisna inuu baad ka qaato goobaha fisqiga ee ku yaala xeebta Liido. ujeedka ugu muhiimsan ee barnaamijkan u baahanayna wax kale ma ahan waa in magaaladii aan ku dhalanay nabadeeda iyo horumarkeeda aan ka shaqeyno. si lamid ah muuqaalkan waalidiinta ku dhaqan Muqdisho oo dhan wuxuu u yahay muuqaal muhiim ah si ay ula socdaan jiilkooda dhalinyarada soo baxaya ee habeen iyo maalinba banaanka jira. si lamid ah November 2018 Allah u naxariistay Taliya Calooli ayaa ka sheekeeyay waxa ka socda xeebta Liido. haddii aan kasii tagane maamulka gobolka Banaadir iyo booliiskiisaba si guud iyo si gaar ahaaneed wuxuu ku fashilmay magaaladii uu maamulku ahaa sababtoo ah habeen iyo maalin wado kasta ayaa lagugu dhici karaa. tuuga ayaa soo badatay. waxaa haddana sii badanaya dilalka al-shabaab. toddobaadkan oo keliya waxaa la dilay mid ka mid ah nabadoonnadii ergooyinka ka mid ahaa. si lamid ah shakhsiyaad ganacsata ayaa la dilaa. haddii al-shabaabna ay wax dilayaan tuugadiina ay wax dhacayaan si lamidana magaaladii fisqigii in dumarka da'da yar la kufsado meeshaan la geeyo la dhibaateeyo jirkooda laga ganacsado magaaladii ay kusoo badatay. waa maxay marka booliiska gobolka Banaadir iyo maamulkiisaba waxa ay ka qabtaan magaaladii loo igmaday inay wax ka qabtaan. ninkan kale waxaa lagu magacaabaa Cabdiqani. waa ninka labaad ee ku xiga ee ninkan marka uu dibadda jiro shaqada oo dhan kala wado. ninkan iyo sheekadiisa kale ragga kale ee halkan joogaba qaybta saddexaad ayaan u dhigan doonaa. muuqaalkan waxaan kaa codsanayaa inaad la wadaagtay saaxiibadaada si sheekadeena ay u gaarto cidda ay quseyso waxna ay ugu qabtaan. weliba si gaar ah booliiska gobolka Banaadir si fariinteena ay u gaarto iyaguna ay jawaab ugu bixiyaan. mahadsanideen.